halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa efemyada barta internetka ee bbcsomali.com iyo facebooka oo caalamka oo dhan aad toos inagula socotaan saacadda Afrikada bari waa 5tii galabnimo. kulanti wacan oo wanaagsan sida aad u dhantiin khiyarta hawada inagala xiriirta waa galabnimo Jimco ah 15 bisha February sanadka 2019. barnaamijka doodda Jimcaha ee galabta ayaad goordhow maqli doontaan hase yeeshee qodobada wararka caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda Hindiya oo sheegtay inay hayso cadeymo muujinaya in Pakistan ay ka dambeysay dilkii 40 askari oo looga dilay gobolka Kashmir. Shiinuhuna wuxuu daboolka ka qaaday in uu diyaar u yahay siyaabaqaadida wadahadallada dhinaca ganacsiga ee kala dhaxeeyay waddanka Mareykanka. barnaamijka doodda Jimcaha ee galabtana waxaynu ku soo qaadanaynaa xorriyadda asaasiga ee hadalka oo qayb ka ah dimuqraadiyadda. qatar miyay ugu jirtaa Somaliland muxuuse yahay dagaalka u dhaxeeya saxaafadda iyo xukuumadda. dhageystayaasha BBC-dana waxay leeyihiin Somaliland laakiin maxay ku guuldareysatay in ay dulqaad u yeelato dhaliilaheeda marka la sheego dawladuhu waxa weeyaan ummad bay isu keenaano wada macsuumin maaha. runtii aniga waxay ila tahay in Somaliland ay ka jirto dhanka xorriyadda hadalka iyo xorriyadda saxaafadda marka la yiraahdo inay tahay meesha ugu horeysa runtii guud ahaan Geeska Afrika. موضوعaas ayaynu barnaamijka galabta ku faaqidi doonaa. maxamed cadde ayaa isku soo duway anigoo Mawlid Xaaji Cabdina oo idin la socodsiin doona doodda Jimcaha. hase yeeshee waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka wararka caalamka. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaa inoo warramaya. mahadsanid Mawlid. dowladda India ayaa waxa ay sheegtay caddeyn buuxda inay hayso Pakistan inay ka dambeysay qof isqarxiyey gobolka Kashmir oo la sheegay 40 ciidamada Indiya inay ku dhinteen. wasiir sare oo ka tirsan dalka India ayaa ka yidhi magaalada Delhi inay qaadi doonaan tallaabooyin dhinaca diblomaasiyadda oo ay ka qaadi doonaan dalka ay jaarka yihiin. koox saldhigoodu uu yahay waddanka Pakistan Jaish-e-Mohammed ayaa waxa ay sheegeen qaraxa iyagu inay ka dambeeyeen markii ay ku dhufteen gawaadhi isdaba socoto oo India ay leedahay maalintii Khamiistii. waa qaraxii ugu daraa ee ka dhaca dhulka la isku khilaafsan yahay ee Kashmir 30 sannadood ee u dambeeyey. Pakistan waxay cambaaraysay qaraxa halkaasi ka dhacay waxaanay beenaysay inay iyadu lug ku lahayd. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo xal kale in loo helo ganacsiga dagaalka ka dhex taagan Mareykanka iyo waddankaasi Shiinaha oo uu sheegay toddobaadka in soo aadan wadahadalladii inay ka sii socon doonaan magaalada Washington. waxa uu la hadlayay saraakiil sare oo Mareykan oo uu ka mid ahaa wasiirka lacagta ee waddanka Mareykanka Mnuchin oo jooga isagu magaalada Beijing. waxa uu ku tilmaamay wadahadaladii ugu dambeeyay ninka wasiirkii inay ahaayeen qaar ay wax ka soo bixi karaan. waxaana la sheegay in la sii wadi doono labada waddan waxyaabo badan inay isweydaarsadaan. ra'iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu ku dhawaaqay hore in loo soo dhigayo doorashadii dalka oo ay dhici doonto 28 bisha Abriil. taas waxay dhacday markii dowladda hanti wadaagga ee dalku ay meel marin kari weyday dhinaca baarlamaanka miisaaniyadii dalka. mudanayaal goonigoosada oo gobolka Catalan ayaa iyaguna taageeradii Arbacadii kala noqday dowladda iyadoo oo 12 madaxdoodii la sheegay in maxkamad la soo taagi doono. isla markaasi waxa uu noqonayaa doorashadii saddexaad muddo 5 sannadood oo laga qabtay waddanka Spain. waxaana ay yihiin dhaqaalaha afraad ee wadamada ku jira lacagta Yuroga. hogaamiyayaasha dhinaca siyaasadda iyo amniga ayaa isugu imanaya magaalada München ee waddankaasi Jarmalka shir weyne lagu magacaabo ka ammaanka oo sanad walba mar la qabto. madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence ayaa waxa uu hogaaminayaa wafdi ballaaran oo ka socda waddanka Mareykanka. waxyaabaha la eegi doona waxaa ka mid ah ammaanka u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub. madaxweynaha dalka Haiti Jovenel Moïse ayaa waxa uu diiday baaq in uu iscasilo toddobaadyo iyadoo banaanbaxay ka dhacayeen dalka. waxaana la sheegay banaanbaxyadaas 7 qof inay ku dhinteen. telefishinka ayuu ka hadlay isagoo muddo aamusnaa waxaana uu leeyahay uga tegi maayo awoodda gacanta kooxaha hubaysan
ee budhcadda ah iyo kuwa mukhaadaraadka ka ganacsada. dadka bannaanbaxa samaynaya waxay ka cadhaysan yihiin sicir bararka waddankaasi ka taagan iyo iyadoo oo la leeyahay saliid lacagteedu ay dhammayd 2 bilyan oo laga keenay waddankaasi venezuela in la la'yahay meeshay ku dambaysay. warkiina waa naga intaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq xaaji maxamed siraad ayuu ahaa inala socodsiinayay wararka caalamka. iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. waayahay kulanti wacan oo wanaagsan mar kale daawadayaal iyo dhegaystayaal si toos waxaad inooga daawanaysaan barta Facebook oo caalamka oo dhan aad toos inagula socotaan idinkoo sidoo kale dhegaysanaya baraha bulshada iyo barta internetka ee bbcsomali.com. barnaamijka dooda jimcaha ayaynu gudagalaynaa. waxaa jirtay in maxkamadda Hargeysa toddobaadkan ay ku riday in aanu shaqayn karin wargeyska la yiraahdo Foore ee ka soo baxa magaalada Hargeysa iyadoo lacag 3 milyan oo shilinka Somaliland markaasi lagu xukumay inay bixiyaan mas'uuliyiinta. 12 bishii January sanadkan 2019 dowladda Somaliland booliisku waxay xireen gabyaaga la yiraahdo Cabdiraxmaan Abees. waxaa jirtay in ururka u dooda xuquuqda aadanuhu ay soo saareen in ilaa iyo 35 qof la xiray kiisas la xiriira xorriyadda hadalka. 28 ka mid waxay ahaayeen saxafiyiin iyadoo markaana sidoo kale ay jireen in la xiray dad iyagu markaasi ka mid ah dadka Facebook ama baraha bulshada wax ku qora. waxaa kaloo jirtay iyaduna in dadka fikirkooda cabira ayagoo dhibaato ay soo gaartay. haddaba saxaafadda iyo markay timaado dadka wax cabira dhibaatooyinka inta badan la kulma maxay tahay sababtu? ma dagaal ayaa jira u dhaxeeya xukuumadda iyo saxaafadda? barnaamijka dooda jimcaha ee galabta waxaa ka qayb galaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Muuse Diiriye. khadka telefoonka ayuu kaga jira magaalada Hargeysa. maxamuud cabdi jaamac xuuto oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier isna khadka telefoonka ayuu kaga jira magaalada Hargeysa. stuudiyaha BBC-dana waxaa la fadhiya Cabdiweli Good oo Axmed Weli Good raali ahaada oo ah qoraa inta badan wax ka qora arrimaha markaasi saxaafadda iyo si fiican ula socda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda hadalka. waxaa sidoo kale khadka telefoonka magaalada Hargeysa ku jirta Yaasmiin Cumar Maxamuud oo ah gudoomiyaha ururka xarunta xuquuqda aadanaha ee Somaliland. dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin. waan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga iyo sida aad u aqbasheen barnaamijka inaad ka qayb gashaan. waxaan jecelahay inaan ku hormaro wasiir Maxamuud Muuse Diiriye. saacadda wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay. riboodkan soo baxay ee sheegaya in ilaa iyo 35 qof loo xiray fikrado kala duwan oo ay soo bandhigeen iyo tallaabooyinkan xukuumadda ku kacday markaasi lidiga ku ah saxaafadda ma waxaa jira dagaal saxaafadda iyo xukuumadda u dhaxeeya wasiir? maya Somaliland iyo saxaafaddu waa saaxiib. Somaliland waad ogtahay geeska Afrika ama Afrika inteeda badan ama dalalka adduunka intooda badan ba inay xagga saxaafadda ay xor yihiin. Somaliland muxuu ahaa ay ku soo dhaqantay ku soo dhisantay ku soo jiri jirtay ilaa imikana ku jirto. wax ka dhaxeeyo ma jiro loolani. waaya aad baad u mahadsan tahay. waxaan jeclahay inaan u wareego gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Somaliland Maxamuud cabdi jaamac xuuto. gudoomiye ururkiina Soldier waad cambaarayseen sidaan ka warhayno wargeyska Foore markii markaa lagu soo rogay inaanu shaqayn karin muddo 2 sano. wasiirkana waad maqlaysay wuxuu leeyahay saxaafadda iyo xukuumaddu wax dhibaatahay kama dhex jirto. marka dhinaciina waxaa lagu eedeynayaa mararka qaarkood inay ka yimaadaan khaladaad oo kale oo aad ku mutaysataan in tallaabo laydinka qaado. marka adigoo taana igaga jawaabaya eedda laydin jeedinayo iyo dagaal miyaa jira markaa u dhaxeeya xukuumadda iyo saxaafadda? soo dhawow. aad baad u mahadsan tahay BBC iyo sidoo kale ka qaybgalayaasha doodan wasiir ku-xigeenka ugu horeeyo. sidaa uu sheegay wasiir ku-xigeenka ma jiraan wax khilaaf oo u dhaxeeya xukuumadda iyo saxaafadda Somaliland. hase yeeshee dunida oo dhan ka jirta saxaafaddu waxa ay tahay tala xisaabtanta xukuumadaha. dowladuhuna runtii maadaama lala xisaabtamayo waxaad moodaa in ay iska ururiyaan oo aanay jeclayn in lala xisaabtamo oo ciddii la xisaabtamayso oo dhan waxay u arkaan inay dhibaato ku haynayso. marka doodaas unbaa jirta. waxa laakiin khilaaf oo saxaafadda Soomaaliya xukuumadeeda ka dhaya haba yaraatee laakiin waxaa qabnaa
qaabka ay u dhaqmaan xukuumadaha dalkan soo maray marka dhinaca saxaafadda laga eego in ay cabasho fara badan saxaafadda somaliland ay ka tirsanayso dalkani dastuur buu leeyahay qodobadiisa 12 18 19 baa damaanad qaaday xorriyadda hadalka iyo madax banaanida saxaafadda marka waxa u aragnaa inta badan mararka qaarkood in ay caqabad kaga timaado saxafiyiinta in ay awoodaha dastuurka saxaafadda somaliland siiyey ay sida xeerka saxaafaddu dhigaya ay u gutaan marka inta badan aanu ka hadalna oo nu aragnaa in ay tahay xukuumadu inay tixgeliyaan maadaama ay awoodda iyagu gacanta ku hayaan saxaafadduna awoodda afraad ama sida lagu tilmaamo maanta awoodaha ugu waaweyn ee dunida laga isticmaalo ay tahay inay tixgeliyaan u hoggaansamaan xeerka iyo sharciga noo dhexeeya dastuurku jirayna runtii in ay ku dhaqmaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay xuuta waaya yaasmiin baan jecla markaa inaan u wareego khadka telefonka khadka fiberka ee magaalada hargeysa yaasmiin ururkeennan difaacayaasha xuquuqda aadanaha ama xarunta xuquuqda aadanaha ee somaliland warkii aad soo saarteen sanadkii riboodkiinii ama xogtii aad soo ururiseen ilaa 35 kiis ayaad soo bandhigteen waxaa jirta iyaduna freedom house hay-adda la yidhaahdo oo xuquuqda markaasi ka hadasha ra'yiga waxay sheegaysaa somaliland bariga africa oo dhan inay ugu fiican tahay xorriyadda hadalka markay timaado weliba ay ka fiican tahay baa layidhi jabuuti soomaaliya inay ka fiican tahay ethiopia inay ka fiican tahay eritrea somalilandna ay ammaantay freedom house hay-addan la yidhaahdo marka isma diidayso riboodkan aad soo saarteen adinku aad leedahay ilaa 35 qof baa fikirkooda loo xiray iyo arrintan kaloo la leeyahay somaliland iyadaaba ugu fiicanba bariga africa maya aad baan idin salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha doodan dhammaantiin waad mahadsantihiin BBC way mahadsan tahay anagu ma aaminsanin horta in arrinta somaliland ka jirta wax weyn somaliland waxaa dhibaato badan ka jirta xorriyadda hadalka dhibaato aad u badan baa ka jirta riboodkan aan soo saarnay ee ahaa sanadkii imkayna dhaafay waxaan ku xusnay oo ku xusan 35 qof oo xadhi ku dhacay 28 kan waxay ahaayeen saxafiyiin sanadkan imika labadiisii bilood hore aan ku jirnaa waxa xadhi ku dhacay 7 qof somaliland waxay dhibaato weyn ka jirtaa rayiga qofku siduu rayigiisa u cabirayo yani freedom of thought ama freedom of speech ay dhibaato badan ka jirta qofku hadduu hadlo waxa damqanaya ama dhibaato u arkaysa dawladdii markiiba qofkii waa lagu dhagaya iyadoo weliba aan loo qaban qofkaasi ka sharciya oo inta badan xadhigu ugu dhaco saxafiyiinta iyo dadka kale raygooda cabiraba sifa aan sharci ahayn ayuu xadhigaasi ugu dhacaa qofkii oon waaran loo haysan baa la xidhaa tan kale soo qaadatay mulido ah freedom house waxay soo saartay warbixinta anagu ma aaminsanin had tiraahdo sidaa laakiin haddana waxaan aaminsanahay somaliland maaha inay isbarbar dhigto wadamada dictatorship ka jiro somaliland waxay sheegatay inay dimuqraadiyad tahay inuu la hadli karo dastuur bay leedahay dastuurkii baa damaanad qaaday inuu qofku rayigiisa cabiri karo rayigu maaha xorriyadda maaha in loo fahmo in wax kasta oo cid raali gelinaya in lagu hadlo qofku wuxuu doono odhan karaa marka waxaa mudan in dulqaad loo yeesho markaa waxa damqanaya ciddii wax laga sheegay ayaa damqanaysa oo qofkii ku dhegaysa marka waxaas inta badan soo noqnoqda ee dhibaato ah ee aan weli xal loo hayn waxa weeyaan xadhiga sharci darrada iyo xadidida inuu qofku hadlo uu hadli karo xataa waxay imika taagan oo caqabad ah facebook postiyadii ama social media inay dawladdu fara badan ku hayso oo qofkii u dabagelayso ama ay gaar ka hayso muxuu hebel qolo iyo muxuu hebel maxaydana yiri taas laftirkeeda ayaa dhibaato iyana waa kugu soo laabanaya Yasmin ma aragno inay dawladdu ogoshahay in la hadlaba dawladdu ma ogola waaya dawladda wasiir baan igala joogay khadka ku jira marka waan kugu soo laaban doonaa Yasmin aad baad u mahadsan tahay waxaan siinaya Axmed Wali waad maqlaysaa wasiirkii iyo gudoomiyihii iyo labadii gudoomiye saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha maxaa ku baxay adiga si fiican horta xeerka saxaafadda Somaliland number 27 oo soo baxay 2004 sida ku xusan xorriyadda saxaafadda waxa lagu xaqiijiyay dastuurka isla markaana dastuurku uu aqoonsaday marka taasi iyadu waxa weeyaan ay reer Somaliland ogolaadeen inay xorriyadda saxaafadda siiyaan laakiin qaladku 3 meeloodba waa ka jira number 1 booliiska iyo saxaafadda ama hay'adaha amniga iyo saxaafaddu isma yaqaanaan saxaafadda lama siiyo kobcin xagga aqoonta ah oo waxa laga yaabaa inay saxafiyiintu inta badan ay yihiinba kuwo baahidooda ka kalahaa oo xagga baahida ka socda
oo markaa qof dan lihi uu wareejin karo oo uu qaldi karo markaa saxafiyiintuna qalad bay keeni karaan dowladduna qaabkii loola dhaqmayey ma wado anugu sidaan aaminsanahay hay-adahan ka hadlaya imiga ay gabadhani ka mid tahay yaasmiinna waxa weeyaan si feera uma eegaan waxa ka dhacaya somalilan iyo dadka la xidhxidhaya somalilan si feera uma eegaan qayb bay ka soo qaataan imigaan waxaan ogahay dad badan oo u xidhan yani sabab la-aan u xidhan marka dadkaasi ma soo qaataan mana sheegaan for example gobolka hooda dhalinyar baa ka xidhan imiga ma sheegaan waxay ku xidhan yihiin annagu waxaan aragna laakiin riboodyo badan ay soo saareen oo ay ka hadleen gibiley oo kale meelo badan oo kale ay ka hadleen oo ay soo bandhigayaan marka ma waxaa leedahay somalilan oo dhan anigu uma arko inay si feera u eegaan wixii dhibaatooyinxagga wasiirkana waxaan leeyahay somaliland waxay leedahay wasaarad bay leedahay warfaafineed wasaaradda warfaafinta xil baa ka saaran hay-aadka warfaafinta iyo suxufiyiinta intaba markaa iska dhaaf taasoo ay qacantogleeyaan oo ay hagaajiyaane toodiiba aada u gaabisa waad macsanta wasiirkan ku laabanaya maxamed muuse diiriye wasiir doodan odhanaysa in somalilan ay khatar ka jirto xorriyaddii aasaasiga ahayd ismarkaasna ahayd tiirka dimuqraadiyadda dhaliishaas laydin jeedinayo adigu sidee u aragtaa wasiir maxaase uga jawaabaysaa waxaan u malaynayaa adiga laftaadu inaad somalilan ka warhayso iyana waa ka warhayaan oo wax dhaliilahoo weyn oo iminka iga muuqda hadaladii saddexdaa aanu barnaamijka wadaagayno aan midkoodna oo weyn muu sheegin runtii weli waxaad moodaa in jiilba jiil rag badan oo raggii wariyayaasha ahaa ee saxaafadan kusoo barbaaray way ka tegeen oo way weynaadeen oo jaraa'idka iminka waxba kama qoraan da'yar baa hadba kusoo baxaysa waxaa laga yaabaa da'yartaasi inaanay tababarkii wanaagsanaa qaadan aanay sidii u qaadan sidaa iminka la sheegayo dee way ka markhaati furano waxay yidhaahdeen inamadu aroortii bay risiq doontaan buu yidhi runtii somalilan marka loo eego waxaan malanaya international communitiga iyo adduun weynuhu inuu ka markhaatiyahay somalilan inay tahay meelaha afrikaba markaad eegto amaba caalamka intiisa badan meelaha ugu wanaagsan muxuu ahaa freedom of voice ku jiro xorriyadda hadalka tahay mucaaradad hadday tahay muxuu ahaa jaraa'id hadday tahay muxuu ahaa dadweyne hadlaaya oo fikirkooga jeedinaya waa ka warhaysaano dee miidiyuhu wax isqarinaya oo qarsoomaya maaha taasi waa taa ta labaad waxa la qorayo ama la sheegayo in la hubsadaa ayaa wanaagsan oo muxuu ahaa imika afar geesood baa afar qof baanu ku hadlaynaa inay hadday meel war ka helaan meesha kalena ka qaataan oy weydiiyaan kolkaasay ogaanayaan xogtii rasmiga ahayd ama ay labadii dhinac wadaagayaanay runtii soo baxaysaa taasay aniga ila tahay inay had iyo goor ku shaqeeyaan wasiir adoo iga raalliya wasiir maxamed muuse diiri adoo ku wata adoo iga raalliya adiga wasaaraddaada arrimaha gudaha waxaa ku hoos yimaada booliiska shaqo waxaa dhici karta wasaaradda arrimaha gudaha inay faraha la gasho ay hay-adda warfaafintu lahayd axmed welina wuu ka hadlay wuxuu yidhi wasaaradda warfaafin baa jirta waxaa dhici karta markaa qof aan warqad loo geyn in la xiro oo markaa ama qof wasiira ama guddoomiye degmo ama guddoomiye gobol uu xiro oo kale marka taa ma waxaad u aragtaa arrin sharciya maya dadku dee bini aadamku wuu qaldami karaa oo wax qaladka muxuu ahaay ka beriyihiin ma jiro laakiin taasi kolkaaba way dhacdaa waa lasii dayaa marar ay dhacdo guddoomiyada degmooyinka ama kuwa gobollada ay xidhaan oo ay u arkaan arrintaasi qalad laakiin marka ayna soo gaadho kolkaaba waa sii dayna dadka caynkaasa ma kuma lihi wax dhici karaa ma jiro laakiin meelaha ugu yar ee ugu roon ee aan adduunka muxuu ahaa ay dhif ku tahay inay hawlaha caynkaasi ka dhacaan baanu nahay waa mahadsantaa wasiir waaya waxaan soo gelinayaa khadka oo kula hadlaya solja guddoomiyaha solja xuuto wasiirka waad la hadli kartaa labadiina wada hadla waxaa runtii in la caddeeyo u baahan xadhiga iyo kiisaska saxaafadda ka dhana iyo kuwa inay madax banaanida hadalka ee dadka kale ay sameeyaan ka dhana iyo runtii kiisas kale oo dhaca oo arrimo siyaasadeed abaad moodaa inta badan in la isku qaldo marka riboodyada la qorayo ururka solja ayaa inta badan saxaafadda somaliland u xil saaran oo ah ururka ay ku midaysan yihiin warbixinaha ay soo saaraan unbaana inta badan maadaama u dhuun daloolo maadaama anagu aanu gacanta ku hayno runtii ah kuwa rasmiga ah
sanadkii hore sidaa aad sheegteen 31 case baa ka dhacay saxaafadda Somaliland ka dhan ahaa hal case unbaa maxkamad galay oo gobolka awdal ahaa inta kale waxay ku dhamaadeen banaanka hal case oo kamid ah ayuunbaa waaran sharciya loo maray inta kale waxaan qabnaa sida aanu diiwaan gelinay ururku in sharci darro loo maray oo runtii wax nidaam sharci ah oo waaran oo maxkamadeed runtii looma marin marka waxaa qabnaa runtii arrintaasi inay ugu badan ee dhibta keenaysa ay tahay hase yeeshee sanadkan waxaad moodaa oo 7 case ururku uu diiwaan geliyey oo dhacay hal case oo kamid ah mooyaane inta kale waxaad moodaa in horumar ay ka sameeyeen ciidamada booliisku oo inta badan ay u qaateen waaran waaranada ay qaateen laftooda aan u aragno in ay meelo kala dusaan oo ah inta badan garsoorayaal inay ka saxiixdaan isla markaa aan u cabasho tagna garsoorkana runtii gudoomiyaasha maxkamaduhu runtii arrintaasi ay dib u eegaan oo amaanad loogu sii daayaan waayo maxamuud adigu ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa madax u tahay waxaa jirta eed laftigiina laydin tirinayo oo ah in dad badan oo saxaafadda ku jira aanay lahayn xirfaddii ama khibraddii oo ay dhici karto in ay geystaan gafaf markooda xayndaab u baahantihiin adinku inaad isku yeeshaan marka ma tababar la'aan miyaa jirta maydin diiwaan gesheen dadka markaa saxaafadda sheegan kara inay saxaafiyiin yihiin oo ay dhici karto marka qaarkood inay gaf xaggiina ka yimaado kale runtii eedaha saxaafadda ka dhanka ee loo soo jeediyay xagga aqoonta kamid ah waa ka garaabaynaa waxbaa ka jira laakiin mas-uuliyad darrada arrinta anagu waxaa saaraynaa runtii qarankan jamhuuriyadda Somaliland ee 28 sano imika maraya in aanu haba yaraatee wax qorshe ah oo uu saxaafadda u dhigay haba yaraatee aanay jirin in aanu u samayn tasiilaadkii ay lagu kaabi lahaa saxaafadda marka la eega aqoontooda waxaa qabnaa runtii in aanay siyaasad dawladdu aanay marnaba ka samaysan ay ku dhaqdo ama ay ku hadlo saxaafadda Soomaaliya adigoo iga raaliya waxaad tiri qaranka Somaliland ayaa ku eedeysan baad tiri qaranku wuu ballaaran yahay wasaaradda caafimaad buu leeyahay waxbarashuu leeyahay wuxuu leeyahay arrimo gudeed buu leeyahay arrimo dibadeed buu leeyahay wasaaradda warfaafineed buu leeyahay meel u saar ha wada eedaynin maxaa la yidhahdaa xukuumadda oo dhan ha wada eedaynin qaranka oo dhan shacabkii baa qaranka ka mid ah adigaa ka mid ah marka waxa weeyaan meeshan waxa uu ku weydiiyey wariyuhu waxa weeyaan aqoontii saxafiyiinta oo gaaban miyaa kalifaysa sidan ma baahidooda kalifaysa sidii aan sheegay wasiir ku-xigeenkuna uu sheegay sidee waxaan u dhacayaan ma capacity building baan jirin hay-adaha ammaanku loo sameeyo oo tababar gaaroo loo sameeyo sidii ay qof u xidhi lahaayeen dadka layskama xidhown oo human rightska imika wayna maqlaysaa gabadhan inala joogtaa yacni layskama xidhown marka sidee u dhacaysaa in la yidha eeg marka kaaga jawaab asagu waad mahadsan tahay de anaga xogogaala waxaan filayaa in anagu aanu dee danta saxaafadda aanu gacanta ku hayno halka aanu saarayno runtii waa garanaynaa Somaliland sidaad ogtahay waxay leedahay national plan guud bay leedahay oo hay-adaha oo dhan mideeya ama baahiyaadka aasaasiga ee qaranka oo dhan runtii ka duula sidoo kale wasaaraduhu waxay kala leeyihiin policy bay kala leeyihiin iyo qorshayaal bay kala leeyihiin Soldier oo kale iminka saddexdii sanaba qorshay samaysaa laakiin siyaasadda hagta dalkani waxa weeye xukuumadda gaar ahaan wasaaradda u xilsaaran ee wasaaradda warfaafinta waxaanu qabnaa runtii inaanay xukuumaddaha talada dalkan soo maray guud ahaantooda ma aha tan oo keliya ma aha tii ka horreysay waxaan qabnaa inaanan la samaynin sida aad la socoto Soldier iyadoo dadaalo fara badan samaynaysa tababaray samaysaa ururku 16 sano jiray sanadkana kii 17aada tababarada isagaa sameeyay waxaa aad uga mahadnaqaynaa BBC-da oo runtii 1999 ilaa iyo 2000kii tababaro fiican oo inta badan saxaafadda Soomaaliya ay majeerata fulisay laakiin qorshayaasha xukuumadda Soomaaliland kuwii soo maray oo dhan wax qorshe ah oo national planka ama priority ah oo ugu jiray haba yaraatay ma jirto waa mahadsantahay safaaradda ingiriiska dhowaan ay ka dalbatay in loo furo aanay aqoon heer jaamacadeed oo aanu sanadkii labaad imika maraya waa mahadsantahay waaya tababarada gobolada oo dhan waa ka fulinay waxaa qabnaa markaa saxaafaddu way dadaalaysaa saxaafadda Somaliland iyadoo xukuumaddu bilow oo tahay oo aan kaabayaashii xuuta waa yahay xuuta waa kugu soo laabanaya waad mahadsantahay yaasmiin baan jeclaynaa u wareego xuuta waa kugu soo laabanaya walaal raalliga aho waa kugu soo laabanaya yaasmiin doodda waad maqlaysaa siday u dhacayso
inta badanna waxaa la leeyahay axmed weli xitaa wuxuu xusay in wuxuu yidhi ururkiinoo kale oo difaaca xuquuqda aadanaha somalilan oo dhan ma wada dabooshaan oo kale taa waxaan inaad jeclaan lahaa inaad nooga jawaabto hadalkii wasiirka iyo axmed weli iyo maxamuudna maxaa kaaga baxay waad mahadsan tahay waxay horta inuu nimaadna xadhigan sharci darrada ayaan ku noqonayaa ee ah qofka sida sifada loo xidho ma jirto qofka loo xidho hab qoraal uu saxaafad ahaan uu sameeyey iyo shakhsiyan mabda isagu uu cabiray uu sheegay somaliland taasay dhibaatadu ka taagan tahay waynaga hore u xusnay marka cid loo maray waaran oo la taaban karo inta badan waxa is haysta oo antaabta ee booliisku wuxuu sameeyaa xadhig sharci darro ah booliiska cid soo qabta hay'adda cidda soo qabata oo booliiska wasiirkuna inuu maqlayaayo wasiirku inuu maqlayaayo waxa weeyaan wuxuu hoos yimaadaa wasaaraddiisa booliisku dhibaatada ugu weyna taale waxa weeyaan qofka uu soo qabanaya sharci darro ku soo qabanaya waaran maxkamadeed ma sito qofkii inta badan dambi faraha kula jiro ma qabanayo labadaas sharcigu dhigayaa in qofka la qabtay isagoo dambi fal faraha kula jira iyo in qofkaas waaran sababaysan oo garsoore sharci u leh soo saaray labadaa haddaanu haysan ma qaban karo tusaale ahaan imika waxaa xidhan dhalinyara boorama ku xidhan fikirkooday cabireen waxay xuseen dad dhintay oo boorama ay sheegeen in lagu laayay berigii dagaaladii dadkaas waxay yidhaahdeen waxaan xusaynaa aabbayaashayo waa la xidhay waarana laguma xidhin waa la iska xidhay waxay xidheen muddo 10 cisho ah oo waa dhalinyarta boorama ku xidhan weeyaan waxa kaloo xidhan oo weli xabsi ku jira muddo dhowr iyo soddon cisho ah xidhan abwaan cabdiraxmaan abes laguma qaban waaran sharciya waa la qabtay waa la iska xidhay maxkamad weli dambi kusoo oogtay iyo xaashi eedadoo loo sameeyey ma jirto cabdiraxmaanna uu xidhan yahay dadkaasoo dhan sifa sharci darro ah ayay ku xidhan yihiin waxaa kale oo jira dhowaan waxaa la xidhxidhay dhalinyaro darbi jiifa oo dadka ugu baahida badan oo ahayd in mas-uuliyad dowladdu iska saarto oo ururso meel geyso ayaa waxay sameeyeen cabashii ka hor sameeyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada carruurtii waa la qabtay waa la xidhay waxaa lagu soo eedeeyey inay carruurtaasi rabshad sameeyeen ay ka sameeyeen wasaaradda horteeda shaqa joojin ka sameeyeen maxkamaddii markii la horkeenay way ku weyday halkii maxkamaddii ahayd inay carruurtii haddii ay wax ku weyday inay sii dayso waxay ku xukuntay carruurtii in maxay tahay ay yiraahdeen xabag bay cabeen carruurtaas xabag bay noo qirtay xabagta maxaa u geeyay carruurtan duruuf nooceeyay qaban idina isma weydii taasina waa dhibaato kale cabdiraxmaan soo noqda arrinta cabdiraxmaan wuxuu leeyahay ku soo noqda bilayska dhibaato badan baa iyagana ka taagan oo dadkan xadhig sharci darrada sameynaya cabdiraxmaan wuxuu xulan yahay cabdiraxmaan abees waxa uu xulan dhibaatada maanta wuxuu leeyahay weli aan maxkamadda horkeen waxa weeyaan wuxuu sheegay xaaladda saldhigyada dalku ay ku sugan yihiin oo cid waliba ogtahay cid la qof uu xadhig ku dhacay ogyahay qof kale oo maxay maxkamadaha ka shaqeeya uu ogyahay qof maxay saldhigyada wax ka galeen ogyahay duruufo ba'an oo xaalado xuquuqal insaan oo tacaddi badan oo saldhigyadu geystaan ayuu ka hadlay isagu waliba markaa u soo joogay cabdiraxmaan ayuu ka hadlay taasuu u xidhan yahay marka lama odhan karo somaliland 100% waxa ka jirta ama waxa ka jirta maxay xorriyad saxaafadeed ama xorriyad siyaasadeed ka jirta somaliland haddaad hadasho ياسمين حلقة أصول لابد دونا ياسمين واي وحي هبون يا حلقة أصول لابد دونا وحن جعلنا كل أبتو وزيرك وزير أنت صو دباتا واي شيء يسو ياسمين وحل لسكي إن تري كرامها هي runtii arrinta inamada boorama ku xidhan ee ku hadlay muxuu ahaa salaatal jinaasaha tukaday ee waxa ay qodeen somaliland dee dagaal bay gashay dagaalkii muxuu ahaa berigii dowladdiisii abaray la gashay dagaalkii waa lagu muxuu ahaa la kala tegey somaliland dowlad bay dhisato ummad bay isu timid oo waayeelkeygii bay iskugu yimid oo guurtideedii bay iskugu timid oo way ka heshiisay wixii dhacay dhan kastaba ha ka dhacee waxa aad horta dee broseskii waa loo maray oo dee waa maxkamaddaa la tego maxkamadda waana looga soo gooyey ujeedada looga soo gooyena inamadu waxaanay ogeyn iyo wixii lasoo maray oo dhan rag iska indhatirayaa wuxu sheegay ama dibad ha joogaan ama gudaha joogaan waxa ay keenaysaa arrin xasaasiyad oo nabadgelyadii qarankan wax yeelaysa waxaana wax laga soo tegay oo 28 sano ee qarankani jiray lasoo dhaafay bay ahayd laga heshiiyey bay ahayd dhan kastoo wax ku dhinteenba ilaan ummaddu way isdishay dad sokeeyo walaalo ay ahaayeen dalka inbaa ka baxday intii ka baxday hadday soo noqotayna intii joogtay gudaha ugu timid way la heshiisay
bini aadamkuna dee heshiis buu wax ku yahay oo ku dhinto qarankan waxaanu ku dhisannay hawl ballaadhan oo dib u heshiisiina in nabaradii berigaasi la taataabto la damqaa waxay keenaysaa dadka yani wax magaratada iyo makasta ayay wax ku beeraysaa runtii aad baan inamadaa wax xumahay dadkii wax u sheegay qaldana waxaan leeyahay ubadka haynaga qaldina ubadka qalad waxa ugu sheegina hawshaasi waxaa xalay dhalay baynu ka dhignay oo dharaartii layskaga yimid ee laga heshiiye boorame layskugu yimid muxuaha dawladdii lagu soo dhisay ugu horreysay muxuaha cigaal ayay hawlahaasi dhammaadeen marka tug kasta oo ay sheegtay walaashay waxa waaran baa loo soo maray wuu muxuaha guddoomiyaha soolta wuu ka markhaati furay in intii dambe oo dhan waaran looga soo geynaya maxkamadaha qaranka somalilandna wuu muxuaha boliisku waa geli karaan mararka qaar qalab oo arrin degdego oo si kale ay u arkin ama si adag oo arkeen way u geli karaan oo ka gaara way socon karaan si aanay nabadgelyada wax u yeelin hase yeeshee 99% waxaanu u maraa procedurkii aanu dhiganay ama nidaamkii aanu dhiganay ee ahayd qofka hadday cid wax ka sheeganaysa inta badanna ciday wax ka ciday miidiyahu wax ka sheego ayaa ashtakooto tidhaahda qofkaasi gof buu iga galay muxuu ahaa magacaygii iyo shaksiyadaydii buu wax yeelay ha la ii soo qabto procedurkaasaanu ku shaqaynaa waxaan u malaynayaa cid kastoo i dhegaysanaysaa inay iga markhaati furayso somaliland doorka ay ka gaadhay muxuu ahaa dimuqraadiyadda wasiir waad mahadsan tahay waa kugu soo laabanaya saacadda wasiir aad baad u mahadsan tahay waaya saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 5 iyo barkii iyo qadar hal daqiiqa barnaamijka aad la socotaana waa barnaamijkii dooda jimcaha ee waxay la tahay waayahay barnaamijkana waxaa ka qayb qaadanaya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Muuse Diiriye oo khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ku jira iyo Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier oo isla telefoonka magaalada Hargeysa ku jira iyo Yaasmiin Cumar Maxamuud oo gudoomiyaha ururka gudoomiyaha xarunta xuquuqda aadanaha ee Somaliland qadka fiberka ayay kaga jirtaa magaalada Hargeysa studio BBC da London waxa la fadhiya Axmed Wali Good oo arrimaha la socda Somaliland waaya dhageystayaasha ay goorno jecelahay inaan si laakiin Axmed Wali farba ku taagan horta runtii wasiirku si waayelimo u hadlay laakiin xaqiiqadu sidaa ma aha waxa weeyaan anigu waxaan u arkaa dhalinyarta is-abaabushay iyagu inaanay cidi ka dambayn the same time dhalinyartu waxay ka hadlayeen dhibaato dhacday oo waalidkood ku dhacday marka xadhiggan anigu waxabaan u arkaa inay tahay kicin ummaddii la kicinayo marka anigu imika for example markaan dib u eego gobolkii iyo dadkiisa waxaan ogahay inay dadkii aada uga kacsan yihiin laakiinse haddii aan la xidheen waxba lagama kacsanaadeen midda kale maaha meytidii ugu horreysay ilaa waktigii Somaliland la dhisay ilaa imiga tacsiin loo sameeyo maalin walba waa loo sameeyaa maalin walba xabaalaa la qodaa maalin walba gobollada qaar wax badan baa ka jira oo caynkaasa cidina kuma xidho marka anigu waxaan leeyahay arrintaasi hoos ha loo dhigo dhalinyartaan sida ugu dhaqso badan ha loo soo daayo wasiirkana waxaan leeyahay waan kugu raacsanahay fikirkaaga saalixa aad leedahay wanaag baa la isugu yimid arrintana wanaagii ku xalil aad baad u mahadsan tahay waad ku soo laaban doonaa dhammaantiin raalliga ahaada dhegeystayaasha ayaa barnaamijka qayb ka ah waxaan u yeerayaa ama u baaqayaa qaybta ugu horreysa magacaygu waa cabdiwahaab dayb sheekh jaamac cabdigeesi jooga magaalada ceel sheekh ee gobolka awdal aniga waxay ila tahay haddii aan barnaamijkani fikradayda ku darsado Somaliland oo raadinaysa inay aqoonsi wanaagsan ka hesho beesha caalamka lana jaan qaado haddii aanay ilaalinin xuquuqda hadalka oo aanay u yeelanin dulqaad fara badan waxay la kulmi doontaa wax aan wanaagsanayn wariyayaasha iyo nimanka aftahanada ah ee na waxa la gudboon in ay in badan isdhowraan gaar ahaan kuwa saxaafadda ku jira inay bartaan anshaxa saxaafadda iyo waxa uu yahay haddii aanay labada qayboodba u dulqaadanna waxa dhici doonta ay aniga ila tahay isfahan darro ballaadhan oo lagu halaagmay aad baad mahadsantiin BBC Soomaali anigoo
cabdiraxmaan maxamuud oo jooga sacuudi arabiya. run ahaanta haddaan raygayga galabta ka dhiibto waa saxafiyiinta somalilan iyo dowladda inta waxa u dhexeeya faqri weyn calaashaan saxafiyiintu waxaan way ka madax bannaan yihiin. run ahaantii waxaan kula dardaarmi lahaa dowladda inay maaragtay xuquuqda bini'aadanka inay dhowrto sida caalamka oo kale. wixii cusub caalamka jecel baa la yidhahdaa, waa inay feeriso maaragtay dowladaha jaarkeeda, waa inay feeriso. saxafiyiintana waxaan kula dardaarmi lahaa inayna xayndaabka dowladda ka bixinayn waxayna dowladda ogeyn inayna samaynin. mawluud iyo martida dhammaan aad baan idiin salaamay. magacaygu waa xawaadan kulmiye xawkiin oo joogta magaalada Hargeysa. haddaan raygayga ka dhiibto dooda jimcaha waxay la tahay run ahaantii xukuumadda Somaliland meel ayay kaga dhacdaa xuquuqda bini'aadamka, sida qofka bini'aadamka fikirkiisa aanu xor u dhiiban karin oo ay jirto dad badan oo lagu xidhay hadallo ay yidhaahdeen ama fikir ay qoreen ama waxyaabo ay cabireen. taas ayaan qabaa oo jirto abwaano lagu xidhay fikirkooda, wariyaal lagu xidhay waxyaabo ay qoreen. marka anu waxaan qabaa inay meel kaga dhacdo. waxaan ugu baaqilaa xukuumadda Somaliland inay ilaaliso xurriyadda hadalka, qofku inuu hadli karo inay ilaaliso. sidoo kalena saxaafadda madaxa bannaan waxaan odhan lahaa waxyaabaha shuruucda ee layniga baahan yahay inaguna waa inaad ilaalistaan. waa mahadsantihiin BBC Soomaali. adinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin. dhegeystayaal kale ayaan soo gudban doonaa. waxaan jeclaha markaan bal inaan fiirsho dhegeystayaasha tooska Facebook ugu jira, qaarkood su-aala ayay iminkana soo weydiinayaan. zakariya fowxaali wuxuu joogaa magaalada Burco. wuxuu yidhi xuuto waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja. waxaan weydiinayaa buu yidhi ma la oran karaa saxafiyiinta ayaa ku dhex milantay siyaasadda, sidaas ayay dowladduna idiin beegsanaysaa? arrintaas maxaa ka jira? aad buu mahadsan yahay aragtidaasi uu soo dhiibtay ninkaasi. runtii waa qabnaa, waa ka garaabaynaa, way jirtaa. waxaad moodaa in ay siyaasiyiintu aad u isticmaalaan saxaafadda, sidoo kalena saxafiyiintu badan qaarkood ay ku dhex milmeen, maadaama oo Somaliland ay qaadatay hanaanka dimuqraadiyadda ee axsaabta badan leh. tartamaa jira, siyaasiyiintu inta badan waxay gacan tugelayeen ama ay jecel yihiin in ololahooda iyo loolankooda ay u isticmaalaan warbaahin. ka warbaahinta ay saxaafaddu gacanta ku haysana way isticmaalaan kuwo ay leeyihiin oo mararka qaarkood la moodo inay saxafiyiinta kuwoodii ay tahayna way jiraan oo iyaga laftoodu ay abaabulaan. sidoo kale diasparaha ayaa iyaguna saameyn fara badan kuloo dadka qurba jooga warbaahinta intooda badan iyagaa gacanta ku haya, iyagoo aan suxufiyin ahayn. mulkiilayaal fara badan oo ah kuwa leh saxaafadda ayaan iyaguna mihnada saxaafadda lahayn oon aqoon badan u lahayn. marka dana fara badan oo isdiidan waa jiraa, waa ka garaabaynaa. hase yeeshee waxaad moodaa saxaafadda Somaliland oo korodhay oo kobocday intii dambe oo 12 TV iyo 12 jira jiraan, runtii inay kaalin mugle oo muhiima ka qaateen runtii inay baahinta barnaamijyada bulshada iyo isku xidhaysa inay xukuumadda iyo isku xidhaysa dadkeeda oo runtii ah mihnada saxaafaddu shaqada ay gacanta ku hayso. waxaa qabnaa runtii in loo baahan yahay saxaafaddu inay ka fogaato waqtigaan ugu cariiraya inay ku milmaan arrimaha siyaasadda ay ku loolamayaan. siyaasiyiinta runtii marka ay kursiga yimaadaan xiraya sharcigii aan ixtiraamaynin ee dhibaatada ku haya saxaafadda inaanay runtii ku milmin oo aanay saacidin. waxa weeyaan ummadda oo dhamme ay arkayso. waata aad baad u mahadsan tahay. waa ka fulidahay inta badan. waa mahadsan tahay xuuto, kugu soo laaban doonaa. yaasmiin ayaan jeclahay inaan u wareego. wasiir iga raalli iyo axmed weli iga raalli hada. yaasmiin, waxaa jirtay in dhegeystayaasha qaarkood ay cabireen, wasiirkan uu cabiray inay jiraan dad Somaliland xitaa siyaasiyiin mucaarad ah oo hadla oo dowladda dhaliila oo dowladda ku qabsada mararka qaarkood waxyaabo xitaa iyadu ay xaq u leedahay sida dadka qaarkood ay sheegaan. soo laba oran kara marka xorriyadda hadalku iyo in wax la sheegaba Somaliland waxay tahay taas bay dowladdu u dul qaadanaysaa. waxaan oo kale mararka qaarkood sida wasiirku leeyahay khaladaad way dhacaan, laakiin waynu ka fiicanna heerkana laku eedeynayo. maxaa ka leedahay arrintaas Yaasmiin? horta inay dowladdu dulqaad yeelataa iyadii aada ugu wanaagsan tahay oo waa wax wanaagsan. waxa weeyaan siyaasiyiin xadhi ku dhacay way jiraan oo ina soo mareen. annaga laftirkeyga waanu diiwaangelinay oo siyaasiyiinta laftirkooda haddii mararka qaar dowladdu way xidhaa oo taa lama odhan karo yani xisbiba aan mar uu hadlo wax dhaliilay aan la xidhin, taasi ma jirto. way iyaga laftirkooda xadhig ku dhacaa. muhiimadda ah in la taabtaa waxa weeyaan khaladaadka jira dowladdu ha qaado inay qaadato weeyaan. maaha markasta inaad positive ka sida aad yani qofku dushun ka taabto, laakiin waxa jira in la taabto oo
runta laga sheegaa wanaagsan Somaliland waa markii ugu horeysay xataa imika ay dhacday bishan maahe bishii hore waxa dhacday nin muwaadin ah oo wariye ah in Somaliland uu isku dayay inuu soo galo oo laga celiyay xadka Somaliland waa abaan caliseeyo waxa la celiyay maxaydanay waxa laga celiyay inuu soo galo wadanka isagoo sharci u haysta oo soo maray maxaydanay dalka markuu muwaadin ah markuu doonana iman kara markuu doonana bixi kara ayaa xataa amar lagu celiyay oo la yiri barkad ka timid ku noqo taasoo kale waa xadidaad inuu qofku dhaqdhaqaaq sameeyo marka Somaliland waxa ka dhaca waxa weeyaan waa arrimo xuquuqul insaan oo fiicnay arriba tacaddi xuquuqul insaan oo aan fiicnayn baa ka dhaca waxa wanaagsan in la qaato la tilmaamana inta ay wax qarinayno ma hagaagayaan laakiin haddii la taabto halkii wax ka qaldan wax badan baa saxmi lahaa adiga iyo wasiirkan idin siinaya hal daqiiqo barto inaad wada hadashaan wasiir yaasmiin labadiina wada hadla siinkii dhexbaxayaa والله دي ولا هذا الكوا ولا هذا لنا لكن هالقضب ماشي يالا محوها أنه ديب ما نعيد كوتشين كما وما نندي دينا وح ماشي يالا وحي هاي قندراس لسوقاتي وعندلكي لقى هيسن والدولة دي محوها شيء سوقاتين عيال لا سوق ولا محوها سيلع عيال محوها لدوني لقى فليو أنه قضب كان دينا وحي هاي دون عدي وحدوني ساي وده سومان لا أنت مع الباب كسوق عشان الداقة كسوق لي وصاحبكي ونوين أو ورياء أو أبوانا من حق يسوع الغادة من كمديه الرجال لو جت عليها تلكو كمديه هاي حصية شيء أنت تكلي ماشي على واحد هاي في سوقات وأنا في الصومال لانا أنا دول محوها الناشناليتي أنا وأقول لها وحن شعلين فجأة وطي استجوا بقى مشروع وطعين إيربورت كارجسين تكسو دجان أما واحد سير على لفت إذا كسو قالين صور السودان وهرجيسي ما دانين وحي دونيان مشاريع كفريان ذلك كونه يدون طلعها تمثيل عاطم وملك العاطي أنت ماشي تالي أنت عصيهاي وحن المشروع عدي دور سالكن هتماضو ووسارد دي خسيني سي وهو هاي هاوتماضو قندراس كهلك الشو أما أقولان شهر كقاعدته أنت ماشي تالي أنت عصيهاي waxaan filayaa wasiir adigoo raaliya waa Axmed Weli Good waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo arrintaadan aad ka hadlayso ee caliseeyo anigu waxaan ka imi gobolka soo galayay waxa jira waxa la yiraahdo heritage dalkana waa la wada degan yahay laakiin waa la kala leeyahay marka waxa weeyaan caliseeyo oo ceergaabo u dhashay ama aan aqoon lahayn maxaa la yiraahdaa oo ku baaro waxyaalka taariikhda ah in laga soo hago Djibouti anagu raali kama lihin waxaan jecelahay inaan mawduucana ka bixino ama shakhsi gaar ah aniga yiraahdo muxuu ahaa aan erayga soo xidho waya wasiir aanu doonayna intaas bay ahayd waxaan ma saddexdooda inay iga marxaati furayaan oo hadalkooda ay ka muuqato Somaliland xagga miidiyaha ama xagga xorriyadda qowlka inay muxuu ahaa ay ku tahay dalalka ugu horeeya adduunka ay ku dhowdahay Yurub iyo Mareykan iyo meelaha kale sida Trump iyo muxuu ahaa looga hadlaa waxa weeye kolley dhaliisha iyo kobaca warbaahinteeda inaan ku dhicino oo aan muxuu ahaa indhaha siino waa loo baahan yahay waana ku dadaalaynaa dawladana waxa aan xuuta waxay raan lahow dhageysta ayaa su'aal soo weydiiyay wasiirka waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiweli wuxuu oo jooga Muqdisho wuxuu yiri wasiirka waxaan weydiin lahaa ma la dhihi karaa wasiir maxkamadda sare ee wadanka ma lahan awoodii ay ku kala cadeyn lahayd wax ku kala cadeyn lahayd oo waxay ku qasban tahay buu leeyahay inay fuliso amarka madaxda dalka sharcigana ka talaabsato ما أنا أروح عن لنا محكمة دستورية عن لنا هاي سيدا شلي طولة الله لها محكمة دي سريح حمر هلا سمية شرعية هلا سمية منهن وحنون هاي دل سوتشري سديد لا تنسنو ديمقراطية دي تاكو سودك ما هي محكمة كلا ساري سي أو أي محوها دور شوي كلا ساري سي أو أي كلا ساري سي هاد دل الكلا محوها قاري سي oo xeerarka muradkooda ay kala saaraysay markay golayaashu isku qabtaan ay go'aamo ka soo saaraysay maaha maxkamadda sare waxa marka madaxweyne haddii la casilo waxaa cod u qaada labada golo oo muxuu ahaa ama aqbala ama diida marka maxkamadeeda waa madaxbanaanta waayo xuuto wasiir waxaan qabaa dhammaantiin
in aanu muran ka jirin somalilan dal dimuquraadi inay tahay dal xorriyadda hadalka uu meel fiican ka maray inay tahay dal madax banaanida saxaafaddu meel fiican ay ka maraysa tahay kaa wasiirka iskuma diidano oo sidaa warbixinaha freedom house ay soo saartay iyo cid walbaaba way ka garaabaysaa somalilan marka la eego gaar ahaan mantaqada ay somalilan ku taalo marka la eego in iyadu u hormood u tahay hase yeeshee dooda taallaa waxa weeye xorriyaddii hadalka iyo madax banaanidii saxaafadda somalilan saameyn bay ku leedahay dhibaatooyin bay ku haysaa gaar ahaan sida kiiska imika cabdiraxmaan ibraahim aadan oo kale marka loo eego weriye abees ilaa hadda xeer ilaalintii eed way u weyday lagu soo eedeeyo waa la celiyey garsoorkii shalay u dambeysay waan jooga anu maxkamadda oo maadaama saxaafadda aan u jooga inta badan hay-adaha garsoorka waan ka qayb galaa kulamada oo dhan way celisay maxkamadda oo wax eeda oo lagu soo eeday way u weyday waxa weeyaan somalilan marka ay doonaysa inay qof qabato waxaan qabnaa in si ka baxsan awoodda ay leedahay ama shuruucda ay u ogashaa runtii inay u qabato kiisas kale oo noocaas oo kale oo sanadaha marmarkood qaarkood dhaca baad moodaa inay sidaas somalilan xukuumaddu ay runtii culays u saarto sida maxamed baashe xaaji xasan oo kale oo d b wel markii ay taagneed ka hadlayso oo kale oo maxkamaddu intay noo sii daysay rafcaan xeraantii ka qaadatay haddana maxkamaddii sare ay u qaadatay sii daysay ilaa hadda kiiskaa meel ay ku aadisaani jirin waxaad moodaa marka hore qabashada iyo inay ku degdegayso somalilan mas-uuliyiinteedu runtii dadka muwaadiniinta ah ee fikradda dhiibta ama saxaafadda ah hase yeeshee ay ku talax tagto in ay broseska sharciga runtii kaga eed baxdo imika waxaa qabnaa dacwadda foore u dambeysay oo kale runtii kiiskii lanagu xukumay runtii waxa u qabnay in uu ahaa kiis ay lagu talax tegay oo xukuumaddu dana ay ka lahayd runtii culays loo saaray baanu qabnaa walow aanu aada garsoorka iyo booliiska oo aan wada leenahay runtii aanu arrimaha inta badan mararka qaarkood xalino dooda taala waxa weeye xoriyatu qowlka iyo madax banaanidii saxaafadda hortaala xeerkii saxaafadda wasiir ku-xigeenku wuxuu ahaa baarlamaankii xeerka saxaafadda ansixiyey khilal kala duwan buu kasoo qabtay dowladda ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja isagoo maareeyaha t v-ga abuu ka mid ahaa hogaankii sare ee soolja ilaa hadda waxaad moodaa in xeerkii ku dhaqankiisii mar walba xukuumaddu runtii ay caqabad ku tahay oo aanay suurtagelinin dowladdii ugu dambeysay ka mid ahaa nooga dhabeeyey dowladdii fiilaayo waxyaabo badan bay runtii ka qabatay kulamo joogtaa bay lalahayd saxaafadda microfonkan u furan yahay waa la hadli kartaa yaasimina way soo geli kartaa idinkaa wada hadlaya waxyaabihii ay xukuumaddu oo dhan borosaskii socday oo dhan ilaa hadda xukuumadda imika talada haysaa saxaafaddii umay fulinin kiisaskaa dhacay oo dhan intooda badan waxaan qabnaa kuwii maanta laweyd gudoomiyaha maxkamadda oo kale ka hadlayay cilada u badan inay ka timaado inta saxafi lasoo dacweeyo marka aanu damaanad ku qaadano inaanay kiisaskii wadin wasiirka mikrofoonka sii marka wasiirka u daa marka gudoomiyaha sheegay waxay u badnaayeen kiisas dhinaca booliiska iyo ka socon waayey xeer waxa uu wargeysku eed ku lahaa maahayn kaa imika u dambeeyey cabdiraxmaan xukunkiisa mooyaane marka waxaan qabnaa in aanay xukuumaddu sharcigii iyo nidaamkii aanay u maraynin hadday u martana runtii marka lagaga gar helo imika tusaale ahaan wargeyska waa beri oo kale ayaa dacwadiisu socotaa imika muddo sanadee saa'ida maxkamadihii wasiirka waqtigaa nagu cariiraya xuuto ilaa haddana way ka haadi laadahay xukuumadda somalilan iyadoo dana ay ka leedahay aan la garanayn dooda taalaa waa taa xuuto raallahow xuuto hadalkaan kala helna xuuto waaya wasiirkaan siino in yar baan odhanayaa waa runtii oo waxaa intaa uu sheegay muxuu ahaa anugu miidiyaha iyo de sooljeeban ka mid ahaan jiray golihii xeerka ansixiyana waan ahaa labada arrimaha imika uu soo qaatay ugu dambeeyey hadda ay tahay foore qaabkii ay wax u sheegtay arrinta ay ka hadlaysay anigu waxaan ahay maxamed muuse oo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha aabbahay oo sodogay ah dhulu lahaa oo ay dawladdu madaxtooyadii ka dhigayso muxuu ahaa hawsheedina socoto oo ayuu si qaldan wax uga sheegay wax laysla diidan yahay oo reerku isla diidan yahay odagay sodoga beertiisii dawladdu diyaar bay u tahay inay adduunkiisii siiso haddii aan la yidhaahdo si qaldan buu wax uga sheegay halkaa oo aanu inuu waraystayahay dadkiidood baan ka qabnaa ilaa hadda xukuumadda aad ka tirsan tahay inay madaxtooye wasiirka u daa meel ay ku cadaysay haba yaraatee ma jirto doodaasina way taagan tahay ilaa intay xukuumaddu cadaynayso ma qabna anagu ilaa hadda cid rasmiya oo ka hadashay oo xukuumadda ah oo leh meesha waaya waa mahadsan tahay waaya aniga waxay la tahay aniga waxay la tahay haddaan axmed weli ahay hadalka waxa dhameeyey ninkii sheekh maxaa la yidhahdaa kasoo hadlayey gobolka awdal ee yidhi ninka abwaanka hadlay
wax doodiisa haddii ay socoto oo wax lagu waayo waa la sii dayno la haysan maayo haddii ay xukuumaddu wax ku weyday maxkamaddu wax ku weyday waxaan hubaa in la sii dayn doono muxuuha isaga wasiir waxaa dhameeyey hadalkaa hawsha iyadahay wasiir kaa dhamaystira allahow madaxtooyey ka wadataa reerkii lahaana muxuu ahaaye la iskuma diidanaa adduunkooga waa la siinayaa jiraduna si qaldan bay u sheegtay arrintaas waa mahadsantaa wasiir waa idinku soo laaban doonaa raalli ahaada waa idinku soo laaban doonaa dhegeystayaasha b b c ayaan fursad siinayaa markaan qayb kale faadumo saxaafadda somalilan iyo markaynu guud ahaan somalilan ka hadalno somalilan waxay ku guulaysatay waddanka inay nabadgelyo ka dhigto bari iyo galbeed caalamka ummadii ka soo qaxdoo dhan ay marti gelisay oo ay joogaan esanima waddankan xoraysay in xukunkii dhinac looga duway oo ay dadka ka mid yihiin halka sanu b f iyo a n c waddanadii ay xoreeyeen ay ka xukumaan somalilan laakiin maxay ku guuldarraysatay in ay dulqaad u yeelato dhaliilaheeda marka la sheego dowladuhu waxa weeyaan ummad bay isu keenaanoo wada macsuumiin maaha qaar baa shaarka dowladda ku talax tegi kara haddii farta lagugu fiiqo da inaad iyaga wax ka qabataad leedahay in ciddii dhaliisha sheegtay aad ku soo boodda maaha saxaafadda somalilan sanadkii 10 goor baa la shariyaa waxaa la yidhahdaa anshax baa la eegayaa marka ma bilaa adaaba rukumadii adadkaa ee saxaafadda somalilan lahayd meel bay iska fadhiyaan magacaygu waa saxardiid xaashaar daale waxaan kasoo fikir dhiibanaya magaalada boorama haddii aan raygayga ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha ee galabta ee b b c da ee ku saabsan xorriyatul qowlka dhanka saxaafadda iyo somalilan runtii aniga waxay ila tahay in somalilan ay ka jirto dhanka xorriyadda hadalka iyo xorriyadda saxaafadda marka la idhaahdo inay tahay meesha ugu horeysa runtii guud ahaanba geeska afrika waxaana laga yaabaa in warbaahinta caalamku ay ishoodu qabato keliya dhowr saxafi ama dhowr qof oo ka gudbay xaydaabkii loo baahnaa ama anshaxii looga fadhiyey oo u xidhan arrintaasi taasina waa waajib in qofkii ku xadgudba xeerka saxaafadda iyo sidoo kale xorriyadda hadalkaba arrinkaasi loo qabto laakiin ani waxay la tahay in somalilan ay ku naaloonayso waxaad aragsan waxaan kasoo hadlayaa wadanka jabuuti haddaan dooda jimcaha galabta araygayga ka dhiibto xorriyadda qowlka somalilan ee laga dayrinayo lana sheegaya in ay dowladdu ay caburin iyo xarigba ku hayso saxaafadda iyo ururada rayidkaaba runtii haddii arrinkaasi yahay mid jira waxaan oran lahaa dowladdu waa in ay dib uga laabataa dub eegisna ku sameysaa ilaalisaana xorriyadda iyo xorriyadda qowlka sidoo kale saxaafadda waxaa la gudboon in ay iska ilaaliyaan waxyaabaha ay qorayaan inuu saxay inuu qalad yahay waqti xaadirkan aan ku jirnana waxaa iska badan wararka propagandada ee kutirkuteynka ee lagu baahiyo baraha bulshada iyo aaladaha la isticmaalo anigu waxaan aaminsanahay qofkii dembi gala amba sharciga ka tallaabsada in markastaba sharcigu ka sareeyo tallaabo sharciya in laga qaadana wax dhibi kuma jirto waad mahadsantihiin v b c waayahay adinkuna aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha iyo daawadayaasha b b c da su-aashii ugu dambeysay ayaan haatan soo gaarnay barnaamijka waana qaybtii ugu dambeysay waqtigan aad buu cariir noogu yahay waxaan jeclana inaan soo koobno yaasmiin baan jeclahay inaan ka hormaro yaasmiin somalilan oo 1991kii sheegtay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale aqoonsi ayay beesha caalamka ka raadinaysay in badan arrimaha gargaarka haddii ay tahay ama doorashooyinka inta badanna waxaad gacan ka geysanaysay beesha caalamka arrimaha dimuqraadiyadda iyo hanaanka iyo dowlad wanaaggana waxaa ka mid ah in xorriyatul qowlka la ilaaliyo somalilan haddii ay dhacdo in dhibaatooyinkaasi laga tabanayo xuquuqda xorriyadda hadalka ee ku aadan ilaa iyo intee laagbi wax u dhimi karta aqoonsigeeda ay doonayso inay hesho waxaan aaminsanahay inay wax weyn u dhimi karto wax weyn bay u dhimi kartaa sababtoo ah waa inay islahaadaan waxaad sheeganayso iyo waxaad ku dhaqmaysaa somalilan waxay sheeganaysaa inay dimuqraadi tahay dastuur bay leedahay dastuurkeeda wax badan buu damaanad qaadaya oo xorriyaddan maanta aan ka sheekaynayna dooda ugu jirna ah kii laguma dhaqmo waxa lagu dhaqmaa xeerar ka horeeyay dastuurka waa xeerarka tusaalahaan xeerka ciqaabta iyo xeerka xabka ciqaabta iyo xeerka ciqaabta guud kuwaas totally dastuurka lagu qaadaa saxaafadda iyagaa lagu qaadaa ka saxaaftiga la xidho isagaa lagu qaadaa qofka raygiisa cabira isagaa lagu qaadaa oo xeerarkaas ku qaadaa looma maro dastuur dastuurka muxuu ka qabaa lama yidhahdo dastuurka waa in la iswaafajiyaa waxaan la sheeganayo ee ah dimuqraadiyad ay somalilan ku faanaso inta ay soomaaliya ka go-an tahayba ay ku dhaqmaysay iyo dastuurkeeda ay samaysatay waa inay iswaafaqaan waa maasanta haddii aanay iswaafaqin haddayna iswaafaqin haddayna iswaafaqin runtii dhibaato badan bay keenaysaa dhibaato badan bay keenaysaa yaasmiin waad maasanta waqtiga cariir noga axmed weli aniga waxay la tahay in sidii uu ninkii ka soo hadlayey ceel sheekh uu yidhi dowladduna wayna dul qaadataa
wixii khaladkeedana ay qaadataa saxafiyiintuna aanay xadgudbin oo ay wararka ay gudbinayaan iska hubiyaan si aanay dadka wareer ugu ridin ee iskala horkeenin dowladda iyo maxaa la yidhaahdaa arrinta haddii si socon tacadiyada iyo aqoonsiga ay raadinayso anigu uma arko in tacadiyo ka hor iman doona ictiraafku inuu ilaa imiga jiro marka loo kombeergareeyo ama marka loo eego afrikada kale laakiin waxaa loo baahan yahay kobcin xagga aqoonta ah inay u sameeyaan oo capacity buildinga saxafiyiinta sharciga ay qorteen oo qurux badanna ay si fiican u abalagareeyaan saxafiyiintuna ay iska ilaaliyaan inay xadgudub ku sameeyaan xuquuqda wararka ay sheegayaan oo wixii beena ay meel iska dhigaan sugnaan badanna ay sameeyaan oy sugaan warka ay soo qaadayaan ee ay dadka u sheegayaan way aad baad u mahadsan tahay wasiirku waa noo dambaynayaa xuutaan siinayaa markan runtii waxaan qabnaa sidaan horeba usoo sheegay somaliland waxa weeyaan dal dimuqraadiyadda iyo madax banaan saxaafadda xoreetul qowlkuba runtii uu ku abuuran yahay maaha dad la caburin karayo maaha dad laga hor istaagi karayo waxay doonayaan warbaahinta somaliland waad aragtaa maalin walba waxa ka baxa hase yeeshee waxaa qabnaa un anagu wixii deelqaaf ku ah awood dowladeed loo adeegsanaya ee ka baxsan runtii nidaamka sharciga ah in xukuumaddu ay ka korto oo ay ka kobcdo oo waxyaabo camalu saalaxaad oo aan sakaara ka deeqsan aanay wax weyn oo somaliland ku soo noqonaya inaanay runtii ka dhigin waxaa qabnaa sidaa uu soo jeediyey iminka axmed weli oo kale saxaafadda somaliland kobc iyo horumarin bay u baahan tahay way ballaaratay social mediahii iyo dee aqoontii saxaafaddu maanta waxaa loo baahan yahay meel la jaan qaadi karto dunida in la geeyo in dadaalada socda runtii la kabo oo gaar ahaan xukuumaddu qorshe cad ay ka yeelato siyaasad ka yeelato oo ay taageerto saxaafadda somaliland sida dastuurku dhigayo ee xeerka saxaafadda ku waajibinaya runtii in aanay albaabada ka xidheen runtii albaabada u furto oo ay tixgeliso oo baahiyaadkooda aasaasiga ee aqoonta horeysa runtii wax ka qabato oo budgetka dowladda ugu dartay jaamacadda hargeysa fakalka ka furan iyo jaamacadaha kale doona awdal iyo sool in laga furo waa mahadsantahay qorshe ka yeelato aad baad u mahadsan tahay wasiir adaan usoo gabagabaynaya halis arrintaas halis ma u aragtaan arrintaas inay idinku imaan karto tii la sheegaya muxuu ahaa yani halis bay ku noqon kartaa xorriyatul qowlka iyo aqoonsiga wallahi inadeer anigu ismarihi taa sababtoo ah waxa annaga naga yimaada dhexdeeda ka yimaada waa waxaa iska yar intuba ay ka markhaati furayaan waananu ku dadaalaynaa inaanay muxuu ahaaye ay dowladdu dulqaadkeedana yeelato taabageliso muxuu ahaa garabkaa ama tiirkaa ah ka afraad muxuu ahaa qaranku leeyahay ee intaa lasoo dadaalayo oo aan aqoonsanahay inay door weyn ka qaadatay muxuu ahaa xorriyatal qowlka iyo barbaarinta muxuu ahaa waxusheega dadka inay ka qayb qaadatay iyo taabagalkii qarannimada inay muxuu ahaa warbaahintu ka qayb qaadateen ka markhaati furaya waxaana nagu qasaba inaanu taabagelino oo sidaa uu codsaday muxuu ahaa guddoomiyaha soolja ay dowladdu indho gaara u yeelato oo ay tababarto waxaana iyaga laga rabaa inama aan tababarkii lahayn oo muxuu ahaaye kusoo booda ama caadifada keentay inta badan in qoraallada ka ilaaliyaan oo ragga tababarani ay galaan muxuu ahaa ka qayb qaataan qoraalka iyo muxuu ahaa arrimaha miidiya sheegidda wararkaba taasaan kusoo ururin lahaa waxaan filayaa somaliland maanta halka ay marayso miidiyaheega runtii inta ay jireen kolley wax waa lala qabanayay oo dee ugu dambeyn imika sanadkan oo keliya intii seminaar ama kulan ee dhacday waa la ogsooyahay haddana wuu socdaa waanu la dadaalaynaa meel walba waxbaanu kala doonaynaa inaanu isku duubnaano oo aanu qarannimadan ka saarro qabyada uu ku jiro adduun weynuhu muxuu ahaa saaray inaanu ka saarro ayaa aanu ka wada ballamayna haddii la yidhaahdo aad iyo aadna wada mahadsanti waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiir intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda jimcaha ee waxay la tahay maanta waxaan u mahad celinayaa martida barnaamijka ka qayb qaadanaysay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee somaliland maxamed muuse diiri oo khadka telefonka magaalada hargeysa kaga jiray iyo yaasmiin cumar maxamuud oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqda aadanaha ee somaliland oo iyana khadka fiberka kaga jirtay magaalada hargeysa iyo maxamuud cabdi jaamac xuuto oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland oo isna khadka telefonka magaalada hargeysa ku jiray stuudiyaha b b c da ee londonna waxaa igula sugnaa axmed weli kood oo ah si weyn ula socda arrimaha somaliland maxamed maxamuud caddi ayaa barnaamijka isku soo duway
anigoo mawlid xaaji cabdina waan idinla socodsiinayay inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii waadna ku mahadsantihiin dhegaysiga iyo daawashada iyo fikradihii aad soo dhiibateen waxaan ka cudur daaranaynaa fikradihii faraha badna aad soo gudbiseen dhammaantood inayna awoodi karin inaan halkan kasoo gudbinno haddii kale insha allahu tacala waxaynu noqon doontaa xilliyo kale haddii alla idmo waa anigoo mawlid xaaji cabdi oo barnaamijka dooda jimcaha idinla socodsiinayay intaynu ku kulmi doono caawa mar kale hawada 9 fiidnimo waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh waad mahadsantihiin